lagu beegsaday ibadu waa taeebahay hawraarina waa oraa halowsigu waa mid jira ankana waa lagu socdaa irbaa lagu beegsaday wadani inuu yahay hormuud wadani haldoorka ka muuqda iyo hoggaankiisaad ka garan inuu hantoota u daayay wadani inuu yahay hormuud wadani haldoorka ka muuqda iyo hoggaankiisaad ka garan inuu hantoota u daayay wadani hoodaalada ilinka guushana u fura wadani doorashada u hura wadanina hoggaamida wadani hambalyada u dira wadani hoodaalada ilinka guushana u fura wadani doorashada u hura wadanina hoggaamida wadani hambalyada u dira وبالتيح بالهيد هذا الكلام سوعي جري هدفكنا وعميد قرى أيام كوطني داقا شعب خرشاد وكطالي وبالتيح بالهيد هذا الكلام سوعي جري هدفكنا وعميد قرى أيام كوطني داقا شعب خرشاد وكطالي إنو هيلك وقلا وطني بنتودنا هايبيا هشيسكو ذاكو قران إميلواتا وطني إنو هيلك وقلا وطني بنتودنا هايبيا هشيسكو ذاكو قران إميلواتا وطني wadani hoodaalada ilinka guushana u fura wadani doorashada u hura wadanina hoggaamida wadani hambalyada u dira wadani hoodaalada ilinka guushana u fura wadani doorashada u hura wadanina hoggaamida wadani hambalyada u dira وأيامها كنا دركيسين وحيامها ومقالة كسمين أيه نبتقلية درهضة والله يروح عنود الله نهي حسبك وطني وحسبك قوشة حسبك وطني وحسبك قوشة وحسبك اسبدل دونكا وحسبك هرماركا وحسبك وضطشكا وحسبك أغونتا وأركيسان دادك حسبك هقامينية دادك حسبك هقامينية إلي لبينتي دلك تاي لبينتي دلك إلي تاي وأوكتين ولا لا يروح على يدك عطسانية إنا نظامك إلى لسان إنا أنشح إلى لسان إنا دقنك إلى لسان إنا دينك إلى لسان مركا إنو كبح إنو هذا وتماشى مركا إنو كبح إنو مركا إنو فقارها كبح إنو ما أشبه إنو كسعورينا وإنو لغيرنا مقالة إنو نحمرينا نبتقلي إنو كمرينا قف ولو ببليس نغو قف ولو ببليس نغو حسبك ودني هاي حسبك يقولي سنة يي وشعبك دورتي وراليدا كي هاي guushiina waxay naga xigta maalmo yaro kooban guushii xisbiga wadani way ifaysaa sida cadceed ayay u dhalaalaysaa way soo dhawaatay guushii
adduunyada laguma arag military rule la mahadiyo laguma arag adduunyada laguma arag talis military oo la mahadiyo adduunyada waxaa garanaysaan Mengistu Haile Mariam baa garanaysaan waxaa garanaysaan Siyaad Barre ayaa garanaysaan waxaa garanaysaan Gaddafi baa garanaysaan wada military baa korneylo military ay ahaayeen waxaa garanaysaan Abdalla Sisi baa garanaysaan Abdul Fattah al-Sisi baa garanaysaan oo imaka timaha isugu xidhay waddanka Masar ayaa garanaysaan military rule lama hadiyo lama arag wadamada military rule ka qabsada ama nin ciidan sal ku leeyahay uu qabsado way baaba'aan maanta haddii xisbiga waddan cid aan ahayn la doorto waxay noqonaysaa qalad taariikhiya oo qaladkii labaad ee laga galay ummadda reer Soomaaliland bay noqonaysaa بدلوا كلمية وارما موسى نقرأ كوابنا وارما على حسبين سوالنا وارما حبطا بايلو دورنا وارما نورنا وار عبد الرحمن وطلعين مينا نفتنا ما وطلع يسنا وار كرسي كدواني مينو وار سومالنا ما بدبادنا وار مصرين نورنا بدلوا كلمية بدلوا وار ساسين اسكوك لي الله أكبر الله أكبر waxaan u sheegnaa isbedel baynu doonaynaa Soomaha codka shacabka ee xusbiga wadani wuxuu ku dhaartay oo ku dhaahday inuu bedelo kulmiyaha daciifka waa maqlayseen shalayta beentay sameeyeen waa maqlayseen raggii 7 sano joogay been abuurkay sameeyeen raggii 7 sano wax idin qaban waayeen maanta wax idin qaban maayaan soo koob wadani ha noolaato kulmiyaha ha dhaco intaa waxaan raacinayaa ayaamaha kan magaaladu sidii nadiifta ahayd ee ololuhu u bilowday wax ka beddelan baa jira nimanka mujaahidiinta sheeganaya horta waxaan ii sheegayaa dee annagu waxaanu hayn markay askarta ahaayeen faqashta ahaayeen raggii SNM abuuray baanu الله أكبر تاجر يا حزبك وطنية سيدا شرفت لهم صباحي وأيام هل كان مقام بهاد علينا يا مركز اللبات صدح قضوة فرينا ما ندين سوى شيدنا يا فرين تكوبات وحان ندين شيئا يا ويسكو صباحي النين اللبات وحين اللباتي مع الموضة إنو صباحنا حقيقي لي إلا إنو كبض إلى حزبك كل مية الله أكبر الله أكبر الله أكبر هقول ليس حسبك وطني هقول ليس داغوتك كل مية هدعو waxaan idin sheegay waxaan marka hore salaamaya dhammaan dadweynaha halkan isugu yimi ee taageerayaasha xisbiga wadaniga waxaan idin leeyahay waxaad tihiin dadweynihii badbaadinayay Soomaaliland taageerayaasha Soomaaliland waa badbaadintii Soomaaliland xisbiga kulmiye waa ogtihiin iyo dawladdiisu muddadii soo dhaafnay halka ay gaarsiiyeen waddankii halka ay marayso maciishadiina waa ogtihiin halka ay marayo caafimaadkii iyo tacliintii iyo wax waliba waa ogtihiin waxaynu nahay xisbiga wadani kii badbaadin lahaa Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland Allahu Akbar Soomaaliland ha guulaysato حزبك ودني هقوليستو وهذا القوة كلمة هاروان وحكورنا يا موسى بيعي هذا الكلمة دي شلي هالكنو كيري يا هايدي ستيلا ميانو يلا مجاهد بينانا ويان موسى بيعي أنا كان ومجاهد بينانا سو مجاهد بينانا ما هدو مجاهد لما يهي هم كم يسوق عندي بلا ما هو عورنا لها بين بكو عورنا لها بين أواس ويان حمر سقاكم مالين وحويان وحايدكم في لانو من أود حكامية تاكتا ترى حسبك كل مية إنه ما تيسقوا دونا يا مشرح ملحوين إنه ما قرن دونا يا إنه محفل كيسلا سو تاجو وحلا دوب يا وحبك كتيرين dhalinyarada ha noolaade
xisbiga waddani ha noolaado cadowgeennu ha jabo cibrigeennu ha raajo fartu waayo waxa weeye innagu burcaynu nahay laynagama soo rarin hargaysa iyo berbera iyo inta ka sokaysa waxaynu nahay gobolkii tagdheer soo ma nihin mawaaraadaynu soo rarannay mabasas baynu soo rarannay waxaan leeyahay caliranaha waxaan leeyahay gobolka burco barasaab baad u tahay mar haddaad barasaab u tahay waad ka baaqsatay dadkii baad isku diraysaa shacabkii baad isku diraysaa looma jeeda dagaale far bay naga dhaxaysaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جيمبا dadk muwaadiniinta ee xisbiga wadani rag iyo dumarba ee qorraxda jooga ee soo dadaalay ee mustaqbalkooda doonaya inay cadeeyaan kulligiin waa salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa waxay raaca waan idiin sheegayaa carabtu waxay tidhaahdaa atacab bacda raaxa haddii ay iminka ku jirtaan dhibaato raaxana waydu gaadhi doontaan haddaad sidaa u dadaashaan walaalayaal waxaan idiin sheegayaa maanta tii walba innaku waxaad ku garanaysaa horumarkeenna iyo mustaqbalkeenna inuu xaqaa'iq yahay inaynu gaadhnay meeshii aynu doonaynay ina wax yaray ka hadheen doorashadii bismillaahi raxmaani raxiim allahu akbar tulbiyaa dhaco waddani ha duulaysatay intaa martaa ta baxo waxaan anigu hadal badan uma baxin waxaan u baxay wasiirradan dawladda wasiirradeedii had iyo dooraane wax maaquula tuma hadlaan shalay waxaan maqlay waxaa la yidhi xirsiibaa ayaa dalta inqalaabiya war xirsi majarantii ciidamada majarantii milatarida waa waxay soo wataan xirsi waa siyaasi soomaalileyna oo ummaddu jeceshahay oo wax u qabtay oo wax walba shicibku jecel yahay dumarku jecel yihiin raggu jecel yihiin ciyaalku jecel yihiin atuwaalanina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ismadayada dooggaa bixiyo degelkan miiraabay nintan aragga loo daynayo iyo ubaxan daasheeyey cirkan dayrka lagu meershay iyo madaygan soo daatay horaadada da'a iyo nimcadan dabadda taaltaalla imminkaan shamsadii daalacdo daahirkiga sharci laga dilaalo dukaan la isla daba taago waa wuxuu dagaalkani ka dhacay dir iyo daarood waa waxa dabkaa inagu shiday cali dilaalow waa waxaad dilo uga dhigteen dawladdii hore haddii aan distoorkii la bedelin la isku wada dooxay maxaa faqijta laga doonaya loola dirinayo allahu akbar waddan ha noolaado kuwa xamar ku dacwoonaya annaku xamar ma nihin dalku waa dimuqraadi cayaar bayna ka dhaxaysa nasiibkeennaynu kala qaadaynaa annakaa u leh kala qoqobaha iyo kala mideeyaha iyo isku diruhu ha dhaco allahu akbar waddani ha guulaysto arbaabtiyo murtida waa u fitiriyaa sulma seegto loogama fadhiyo saanaadaankiyo hasajada sanaaxa ugu dhaxo soolaha rabay kulmigii saxraa jiray markii la isku sala jooji sawaxan iyo qabuuq iyo markuu salow ka qiiqaaba sinaantiyo distoorkii markii ay suuro geli weyday siyaasiyo indheergarad markuu saydhay taladooda marba alla sabata saaraya mar bay sigatay maandeed allahu akbar maanta waa maalintii soo baxa somalilan waa maalintii kacdoonka way muuqataayoo indhihiinaa ka maqnaatiya waxaan leeyahay somalilan halkudhaggeennu maanta waxa weeye waa isbeddel waxaynu doonaynaa isbeddel
waxaanu doonaynaa isbeddel waxaa arkaysaa shalayta wixii kulmiya samaynayey in hantidii qaranka la burburinayey innaga dalka lexajeclaa inaga haysa waynu dhowranaynaa dalka waynu ilaashanaynaa nabadgelyada inoo ilaaliya waa mahadsantiin wasalaam waxaan salaan aad iyo aad u diiran u salaamayaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka togdheer taageerayaasha waxaanu kelmad keliyaan idin xasuusinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan baa xisbiga kulmiye u furay tartanka doorashada tartanka maalintii kaambeynka xisbiga kulmiye maalintii dambaraadee ku xigtayna waxaa furay guddoomiyihii xisbiga culayska intaa leeg waxaa loo saaray burca miyaa garanaysaan waa taageerada xisbiga waddani ee laba jibaarantay ee idinka muuqata taageeradaasaa keentay in guddoomiyihii dhammaan xisbigii kulmiye inuu gobolkii togdheer mooyaane intii kala soo cidleeyo somalilan ma waxbaa iska beddelaya taageeradeenna iyo cududeenna ma waxbaa iska beddelaya sidaas taageero ka soo korodha mooyaane taageero isbeddelaysa ma jirto allahu akbar allahu akbar allahu akbar waddani ha guulaysto somalilan ha guulaysato horumarka ha u dhaqaaqdo cabdiraxmaan cabdilaahi ha loo codeeyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa sidaa isugu soo baxdeen waxaan yar xabeebsanahay hadalka badin maayo anigu qodob quraan ka hadlaya kulmiye markay guuldarraysteen waxay istubeen waddooyinkii waxay burburiyeen gaadiidkii waxaa la xidxidhayaa madaxdii xusbiga waddani waxaan ugu baaqayaa badhasaabka gobolka togdheer taliyaha qaybta boliiska iyo dhammaan maamulka gobolka in si degdega faraha looga qaado ragga la haysto ee lagu xidxidhay sida sharci darrada ah baabuurtoodii la burburiyey oo uu kow ka yahay beeldaajiye xuseen faarax xandulle allahu akbar somalilan ha noolaato burco ha midowdo waddani ha guulaysto kumaa yaabay yuu ka yaabay aad baa u mahadsantihiin walaalayaal cadceed baa taagantihiin waftiguna wuu badan yahay hadalkeenna mid baynu odhanaynaa halkan shalay markuu muuse biixi ka hadlaya odayaasha ka hadli doonee wuxuu ka hadlay soomaaliya oo waddani ku dhowdhabasiiyey anigu xog qudha idinla wadaagayaa waddanka somalilan nin mar wasiir ka noqdo maxamed cabdilaahi cumar la yidhaahdo oo mataastana lagu naalaysi jiray oo aanu ingiriiska wada deganayn walaalawaala taliyihiisa arrimaha dibadda muuse biixi waa ninka qudha ee u dirtay sarkaal qaabilsan soomaaliya ee uu farmaajo la soo hadalsiiyey ee uu yidhi la dhiilgaree ee xamar ka tegey waa xog dhab ah oo aan been ahayn oo ay hayso somalilan oo dhani walaalayaal ma ninka sarkaal u dirtay xamar ee wasiirkiisii arrimaha dibadda u dirtay baa xamar doonaya mise ninka shacabka somalilan taageeradiisa haystaba xamar doonaya waxaan idiin sheegayaa ummaddu way ka cilbaxday halku xoqayo muuse burco waa taa waa isu soo bixii ugu weynaayaan abidarko waxaan idin leeyahay midooba gacmaha isqabsada si aad gaajada u tuurtaan oo aad faqriga u tuurtaan oo aynu barwaaqo u gaadhno oo shaqa abuur u gaadhno dhallinyaraday oo aynu aragno burco warshada leh oo burco garoonkeedu furaya aynu aragno oo burco barwaaqooda aragno midna waan idinkula dardaarmaya haddaad tihiin dhallinyarada anoo afkiinna ku hadlaya maadaama gobolka ka soo jeedo reer waddani dhallinyaradiisow walaalayaal nabadgelyada ilaaliya innagaa guushii wadanna gaadhiga haddii laydinka jabiyo u dulqaata muraayadaha innagaa samaysanaynaa maanta nimankaasi way dhacayaan oo rafadkay rafanayse yaanay guusha inaga wasakhaynin allahu akbar allahu akbar allahu akbar badaluu kulmiye badaluu somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato burco ha israacdo burco ha israacdo qaybintu ha dhacdo qaybintu ha dhacdo faquuqu ha dhaco qabyaaladdu ha dhacdo kulmiye ha dhaco kulmiye ha dhaco kulmiye ha dhaco walaalayaal salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
burcay waan idin salaannay dhammaan taageerayaasha xisbiga waddani ee halkan soo buuxiyey dhammaantiin walaalayaal guul baan idiin rajaynayaa guul walaalayaal waxaan idiin sheegayaa ninka maanta soomaali weyn ku aadaynaya xisbiga waddani horuu uga macaashay soomaali weyn inuu shacabka Soomaaliland ku eedeeyo 1994 ayuu soomaali weyn dadka ku eedeeyo uu ka macaashay beertii cismaan dacas buu ku boobay Soomaa Allahu akbar Soomaaliland noolaato Soomaaliland israacdo Soomaaliland barwaaqowdo Soomaaliland sixir bararka ka baxdo Soomaaliland kala qaybsanida ka baxdo waxa weeyaan shacbiga reer Togdheer ee halkan isugu soo baxay waanu idin salaamaynaa waxaanu idinka mahadnaqaynaa dareenkiina qaaliga ah ee isbedel doonka waxa la qiray isniintii hore iyo maanta inuu maanta isa suubaxu ka badan yahay intii hore taana waxa keentay shalayta halkan ay taagnaayeen qoladii kulmiye wixii ay ku hadlayeen baa keentay dadku inuu muujiyo Soomaaliland way codaysay 6 gobol iyo degmooyinka iyo tuulooyinku way codeeyeen waxay u codeeyeen isbedel soo sidaa ma aha dabeedna xisbigii kulmiye wuxuu nervous buu noqday wuu cadhooday wuu muraara dilaacay wuu qabsan kari waayay xafladoodii shalay waxay bilaabeen caytan waxay bilaabeen dadka waxaa xoqaya dhallinyarada halkaa joogtaa berigii xumaamuhu dhici jireen inaanay dhalanba waan xamar miyaa taqaanaan lafdhabarta waddani waa idinkaa xamar miyaa taqaanaan cidina geyn kartaa ma jirto waxa weeye waxaynu yeelaynaa nabadgelyadaynu ka shaqaynaynaa in xamarna dooni mayno cidna lagu eedayn maayo marka aynu kubadda ka sheekaynayno kooxda laga badiyo maaragtay oo garoonka ka kici weyda oo oyda saddex baynu ku dhufannay kulmiye dabeedna waxay ka ooyaan garoonkii bay kici laayiin gool waluba marka 3 gool laga dhaliyo wuxuu yidhaahaa war meeshii iga qabo war Ronaldo iga qabo war kaa kale iga qabo iminka kulmiye wuxuu leeyahay war burxay iga qabo war berbera maxaa dhacay war ceeri gaabo war laascaanood laa ilaaha illa allah meesha subhanallah waxaan idin leenahay halkaasaynu ka sii wadaynaa muuse biixi musharaxu isagaa xamar yaqaana dhallinyaradiinaasi ma taqaanaan 20 sannadood buu askari ka ahaa bay iyo bakool iyo baydhabo iyo muqdisho isagaa garanaya 2 sannadood oo sare maxaa ku soo qaataa maxaa 20 sannadood xamar joogtay iyo 2 sano ee sare kala baawr weydisay waar dooni mayno ma naqaana xamar bartaasaynu ka wadaynaa ballanteenu waa waddani akbar walaalayaal Somaliland waa idinka way kortay way xidildaysatay way ilbaxday way nabadowday u biqi mayno miyaynu u baqaynaa u biqi mayno horay u soconaysaa yaan laynaga jeedinin wax la soo dhaafay waxay Somaliland iyo xisbiga waddani wuxuu ka shaqaynayaa mustaqbalkiina adduunka horumaray sidaa uga mid noqon lahaydeen soo maaha soo horu uma soconno foodkii waynala taagan yahay yaan laydinka jeedinin maalinta inaad soo baxdaan yaan laydinka jeedinin inaad fartiinna ku beddeshaan yaan laydinka jeedinin inaan mustaqbalka sallaxanno الله أكبر برع وامد تقدر وامد يين أقول لك وين وحين ربنا لنا برعة بابرية كالبيت يوم قوي حول لنا قوارك سوما حزبك وداني كوشة يسقاه كامل يا سوماها انت بكتا وحشو يسال الله سودة ويا سوماها وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام قيمة بدن كدب عادي عاد باوغو mahadsantiin reer wadan isla u muujiseen xuduudiina sida xisbiga isu barbar taagteen sida ugu heelantiin inaad u codaysaan aad baa ugu mahadsantiin inta kadib waa maalin aad u weyn
ومالين أدوين وعن لا رير برعو مر لباد رير برعو وما تنتهين درين كينا أنا تسيسين تاغير دينا إنا مدحيا كرو قادين آدي آد وما تنتهين مر لباد يا مر صدحات با وأنا دي كما هاد علينا تاغير دانا سيسين واتكلمية قوسي سي واتكلمية ولا قوستي كلمية لقبدي كلمية لقبدي كلمية لقبدي كلمية لقبدي وحا عديسي هذا الكيسي شلي وهالك موسى كيدي أيا عديسين لقبدي نيكا لقبدي أو عروضاي أو في القتما إنه في القتام مينو وعن لا يعيدتك الرير ودني ميلك استي شوغان أنا ku hadlaya afka xisbiga iyo guud ahaanba inta sama jecel Soomaaliland hala ilaaliyo anshaxa hala ilaaliyo sida kulmiye yeelayaan la yeelin wixii habsami u socodka doorashooyinka inaga xumaynaya wixii nabadgelyada inaga xumaynaya wixii dalka kala qaybinaya wixii dalka inaga qaribaya wixii dadkeena xuma gelinaya ha laga dheeraado wixii diinteena ku xum waxaan leeyahay laga dheeraado wixii diinteena ku xun wixii dadkeena ku xun wixii dalkeena ku xun ha laga dheeraado ha la ilaaliyo anshaxa ha la ilaaliyo dhaqanka ha la ilaaliyo adaabta doorashada ha la ilaaliyo intaa kadib waxaan leeyahay wadani wuxuu doonayaa Soomaaliland barwaaqa oo loo siman yahay Soomaaliland barwaaqa oo loo siman yahay wadani wuxuu doonayaa Soomaaliland mida oo midaysan Soomaaliland mida oo walaalo gacmaha haysta buu doonayaa wadani wuxuu doonayaa Soomaaliland oo nabada Soomaaliland oo nabado sharcigu sareeyo buu doonayaa Soomaaliland oo nabada oo sharcigu sareeyo buu doonayaa hada u fiirsada hadalkayga kulmiye muxuu doonayaa kulmiye wuxuu doonayaa Soomaaliland qaybsan waa hadalkoodii baan ku keenay hada u fiirso Soomaaliland qaybsan shalay halkan wixii uu Muuse ka yiri inagu la qasan mayno laakiin wuxuu doonayaa Soomaaliland qaybsan halkan wuxuu keenay oo calaamad u ahayd jeegan laba daraf ka kooban inaguna maxaynu keenay waa tan waa giraantii waa halka ku sawiran inaguna waxaynu keenay dadka dalkoo dhan oo giraana oo gacmaha haysta waa laba gacmood iyagu inana waa dalkoo dhan oo gacmaha haysta ayaa inoo calaamada dadkoo mida oo walaala oo wada jira oo wax wada leh oo siman ayaynu doonaynaa soo sidaa ma walaalayaal wadani calaamadiisi shalay halka dib ugu fiirso eega jeegaan buu keenay waxaan leeyahay kulmiye halka shalay jeegaan buu keenay markuu jeegaanta keenay wuu ka khudbadeeyey wuxuu yidhi Soomaaliya la doonaya iyo Soomaaliya lagu socdaa Soomaaliya ma aqbalayna Soomaaliya adiga wada kulmiyo adiga wada inaad wada waxa kugu nadiira calaamadii halka laga sheegay wasiir kamida baa shalay halka kaga hadlay oo Soomaaliya noolaataa Soomaaliland maqlay balada rikoodkoodii daawada isma ogee balada rikoodkoodii shalay dib u eega kulmiye inuu dadka qaybiyo doonaya inuu dadka qaybiyo oo dalka qaybiyo oo u kala qaybiyo laba qolo xola iyaan iska leeyahay Muuse halkan ma shalay waa ka hadlay waa burco markuu halka ka hadlayay ee ummadda ku qaybinayay waxay u dhigantahay oo ay xasuusinaysaa 1994 isagoo jooga u dheelka tawallayay wax cad baan keenaya ka hadli maayo malamalaya moodmooday isagoo u dheelka tawalli jooga isaga iyo madax kale oo la socota oo wasiirka dakhliga yahay ayuu wuxuu ku dhawaaqay dagaalkii ka dhacay halkan dagaalkii halka ka dhacay ayuu ku dhawaaqay waxa uu tagay odayaal waxa uu tagay culimo waxa uu tagay ganacsato intaba wuxuu ku yiri halka kan culimadii way joogaan weydiiya masaajidada ka weydiiya dagaal baanu ka ridaynaa ordonaaga iyo carruurta la qaxaada doonaysan ayuu halka kaga yiri waa halkan hadda raadkaas uu muuqdaa waa shalayto hoos ugu degi maayo taa inuu qaybiyo doonaya dadka qaybiyo halka u dhaafi maayo waxaan tusaalaynayaa leeyahay hadda day haddii xamar marka laga hadlayo ma waxaynu noqonaa qaran jiro oo dhisan
mise waxaynu noqonnaa qaran madaxdiisu isku eedaysa hebelba xamar tegey hebelba xamar doonaya xamar dooni mayno dalkeennaynu dhisaynaa dalkeennaynu doonaynaa inuu wax noqdo inuu barwaaqoobo inuu isagoo mida meel maro dunida qayb ka noqdaynu doonaynaa kaasuna muxuu ku imanayaa ma qayb baa keeni karta dalkoo isku duuban iyo dadkoo isku duuban baa kaa keeni karaa meesha la yidhahdo kulmiya muxuu doonayaa dadkoo ah badhna naaxo oo dhergo badhna uu gaajalaysa buu doonayaa badhna inay gaajalayso badhna uu dherguu doonayaa maxaa kuugu nadiira ka damqan maayo oo ka hadli maayo oo brogaraamkooda kuma jirto inta uu halkan ka hadlayo waxa weeye waxa dhacay ee maciishadii qaaligarowday ee sixir bararku maraya 10,000 ee danyartii baktiyeys miyaa weli maqasheen kulmiyo ka hadlaya miyaa maqasheen kulmiyo kama hadlo xal ma keeno barnaamijkoodana kuma jirto hadda dadkii caydhoobay dadkii reer Soomaaliland xoolahoodii ka baxeen ee caydhoobay barnaamij ma haya kulmiye lacagtii ururiyayna uu qaato waa ka koorolaynaya kulmiye lacagtii ururiyay ee ogeydeen ee masraxa lagu ururiyay ee kulmiye ku baaqay ee dadka reer Soomaaliland ka soo jawaabay ee la ururiyay ee loo ururiyay dadkii tabaaloobay ee xoolo ka baxeen kulmiye la weydiinay miyaa la aragteen ma inaan arago kulmiye la weydiinaya wuxuu doonayaa dalka in badhna barwaaqoobo oo gurto badhna inuu waxa weeye gaajoodo buu doonayaa waxaynu doonaynaa Soomaaliland innaguna Soomaaliland horumarsan oo aqoonteeda iyo caafimaadkeeda iyo akhlaaqdeeda iyo waxbarashadeeda intaba la horumariyo baynu doonaynaa iskama lihin barnaamijka xisbiga ay ku sugan tahay qodob bay ugu qoran tahay dhalinyarada reer Burco ee halka jooga iyo dhalinyarada reer Soomaaliland guud ahaanba waxaan leenahay mustaqbalka idinkaa bedeli kara haddii shalayto kii idin baaqayay ee colaadda ku baaqaya maanta idin baaqo oo belo idinku baaqo oo idin qaybiyo idinku baaqo oo aqoontiinnii iyo jaamacaddiinnii iyo wixii aad barateen uu dafiro oo uu qoloqolo iyo qabyaalad hor dhigo hadda ogaada waad guuldaraysateen ha istaba taagina kuwa dantiinna iyo mustaqbalkiinna u taliya dalkiinna u taliya dantiinna iyo mustaqbalkiinna u taliya xisbiga dantiinna ka jawaabaya raaca waa wadani xisbiga dantiinna ka jawaabaya mustaqbalkiinna ka jawaabaya waa wadani barnaamijkeega nala eeg u fiirso in nalala doodo barnaamijkeega la eega baanu ogolahay dooda weydinkii arkaya musharaxiinta in badan baa kulmiya shoocayay oo laaha nalala doodo oo doonayay waa daawateen madaxweynahoodii iyo ku-xigeenkoodiiba weydinkii daawaday madaxweynaha ku-xigeenka kayu doonayeen musharaxiintoodii weydinkii daawaday maxay ku hadleen muusaa joogayo wuxuu dafiray isagoo ay u muuqato xubnihii aan ka midka ahaa ee ka soo horjeeda ee waddani tegey ayaa wuxuu dafiray madaxweynaha uu la joogay ee dhisaya siyaasaddiisii markii la weydiiyey siyaasaddii arrimaha dibadda iyo ictiraafka aqoontiisa iyo experiencekiisa iyo garashadiisu bay muujinaysaa kamuu hadal barnaamijka iyo policyga siyaasadeed ee uu ku hagi doono dalka kamuu hadal wixii hore u dhacay kamuu hadal sida uu u dabagelayo ee u xaqiijinayo wuxuu diiday oo dafiro yidhi wadahadalladii nimankii ka shaqaynaya waddani bay tageen oo iyaga xumeeyey annagu markaannu kulmiye ahayna wadahadallada ka shaqaynaynay siyaasaddii kulmiyaannu ku shaqaynaynay isaguna waa kii shaanida ku tuuraya madaxweynaha kii madaxweynahaannu ku shaqaynaynay isna waa kii shaanida ku tuurayey hadda u fiirso madaxweynaha waa kii shaanida ku tuurayey annaguna siyaasaddaasaannu ku shaqaynaynay madaxweynaha lahaa ta u dafirayaa waa ta noocaasa waa tii 3 goloba isku raaceen oo u codeeyeen 3 golo qaranku leeyahay waa tay u codeeyeen wuxuu aagada ciraa la weydiiyey madaxweynaha musharaxeennaa la weydiiyey wuxuu ka hadlay si cilmiyeysan oo uu leeyahay waxaan dabagelayaa xaqiiqa raadiskii guddigii 2005 halkan qaaday Soomaaliland ka qaaday xaqiiqa raadinta barnaamijkii ay sameeyeen ee saxeexeen ayaan dabagelayaa sidoo kale wadahadalladii Soomaaliland
ee lagu soo wada hadlay ayaan dabagelayaa sidoo kale waxaan la imanayaa barnaamij firfircoon isagu intaa midna muu sheegin waxaa horena malaa maba ogaba barnaamijkaa horena malaa maba ogaba halka Soomaaliland marayso ictiraafkana ma oga wuxuu yidhi dad aqoon leh baanu keeni doonaa buu yidhi dad aqoon leh ayaanu keeni doonaa intaasuu kaga baxay aqoonta uu keeni doonaa maanta inta hareera tuban ee aqoonta lihi way curduduubanta waxba lama weydiyo miyaa aragtee way curduduubantahayoo aqoonyahanka iyo dhallinyarada aqoontoodu meel ay ku horumariyaan oo kaga hadlaan oo ku soo bandhigaan dee kulmiya ma lahaa way idinka arkay inta aqoonyaane iskaga timi ee ka hadashay ama jaanis u weyday ay barnaamij dalka ugu anfacaya ku soo bandhigto waxaan leenahay waa waddani meesha aqoonyahanka u haysa jaaniska meesha dhallinyarada u haysa jaaniska meesha muwaadiniinta u horseedaysa horumarka meesha dalka isbeddelka laga samaynaya waa waddani kulmiye hadduu wax beddelaya dhammaantaba uu joogaayo wakhtiga intii horena wuxuu kaga dhacay muuse intii uu madaxweynaha rifayey cunahayey intii dambana wuxuu yidhi aniga iraaco waata wixii dhaqaale dalka lagu horumarinayey isaga loogu kaambayn garaynayo ee uu ku ololaynayo hadda u fiirso intii uu inoo yimina waxaan ahayn labadii abaarooda midna bari ka dhacday midna galbeed ka dhacday miyaa aragtee dee waa muuse abaaro abaartana isagunbaa watay waa muuse abaaro madaxdu banaanaya barqadmidu bay la timaadaa ilaahay baa sabixiya wax walba ay gacantiisa ku jiraan laakiinse madaxdaa waxay leedahay badhaadho iyo barwaaqo midunbay horseed ka tahay soo maaha ilaahay bay gacantiisa wax waliba ku jiraan madaxduna ishaarada ay leedahay waa midunbaa laga helaa waa aragteenoo markii la sharaxay ayaa abaartii inagu bilaabatay soo maaha markii la sharaxay ayaa horumarkii Soomaaliland ka socday istaagay soo maaha markii la sharaxay ayay kulmiya qaybsamayo waa tii aan anana ka dareeray habeen cad ka dareeray soo sidaa maaha Soomaaliland hadduu yimaadana sidaa uu maanta ku qaylinayo uu kala qaybinaya sida uu ku qaylinayo ayuu kala qaybinaya muuse markaa waxaan leeyahay waxba ku tiigaali mayno intaasaynu u daynaynaa dalka innagu horumar baynu la doonaynaa barwaaqaynu la doonaynaa hagaag baynu la doonaynaa waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaynu insha allahu tacaala mari doonaa oo aan idin horkacaynaa insha allahu tacaala laamiga dheer ee maray ilaa baarsiigo ayaynu maraynaa haddii allah waddan ogolaado laamiga dheer ee qabtay ilaa baarsiigo kadibna waa soo noqonaynaa laamiga afkooyaynu la laabanaynaa waa idin horkacaynaa waa inoo socod nabadda ilaaliya dadka